wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in saaka ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay la wareegeen deegaano muhiim ah oo ku yaala gobolka oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya. Ciidamada huwanta ee ka dhaqaaqay aaga degmada Jallaqsi ayaa gudaha u galay deegaanka Buurweyne iyo Show oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaasi oo hore ugu sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maamulka degmada Jallaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii howlgalka hogaaminaysay ayaa sheegay inay haatan ku sugan yihiin labada deegaan isla markaana ay ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ah. Nuur Dheere oo horey u ahaa sarkaal ka tirsan militariga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada uuna ujeedku yahay Al-Shabaab loogu xoreyn lahaa deegaankaasi. sidoo kale wuxuu ugu baaqay dadka deegaanka inay garab istaagaan ciidamada isla markaana ay qayb qaataan xoreynta gobolka Hiiraan. xaaladda deegaanada la wareegay ayaa hadda ah mid degan waxaana fariisimo cusub ka samaysay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo gaaray halkaasi. Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ugu dagaalka badan ee lagula jiro Al-Shabaab waana halka uu ka soo bilowday kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo wadi doona ilaa ay ka cadibtiraan deegaanada ay ku sugan yihiin ee gobolka Hiiraan.